الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaynu xusi doonaa in sha allahu 15 wasiya linayli الnajaax, 15 dardaaran oo la xidhiidha sidaynu u gaadhi lahayn guul iyo horumar. waa arrimihii rawxaaniyaadka dhisaya iyo qalbiga si uu qofku sahay u qaato. dardaaranadaas waxaa kow ka ah calayka bitaqwa allah fa hiya khayru zaad. alla ka cabsiga inuu qof waliba ogaado sahayna ka u fiican weeye. markaad doonayso horumar, waxyaabaha lagu xaqiijiyo adduuniya aakhirada waa in aynu ilaahay ka cabsano subxaanahu wa tacaala. ilaahay baa wuxu uhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbu. qofka ilaahay ka cabsada ilaahay wuxuu siin doonaa makhraj. makhrajku waxa weeye meel kastoo cidhiidhiya uu galo waddo uga baxo. in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana. ilaahay dadkii muuminiintaa buu u yeedho wuxuu ihi haddaa ilaahay ka cabsataan mushkiladdiinna wuu furdaamin. marka furaha guushu iyo horumarku waa in addoonka ilaahay qalbigiisa ku weyn oonu ilaahay qalbigiisa ka maqnaanayn. taasi waa qodobka koowaad oo wax walba uu leeyahay soo ilaahay kuma arkayo. arrinta labaad waxa weeye laa tay-as, ha quusanin. oo waxaa la yidhaahdo quustu qofka mu'minkaa dhaqankiisa maaha. inaad faraj helaysa ha ka quusanin, naxariista ilaahay ha ka quusanin, cidhiidhiga inaad ka baxaysa ha ka quusanin. inaad quusataa waa guuldarro. ilaahay baa wuxu uhi qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica. nebi maxamedoo farriintan addoommaha iga gaadhsiiya waxaad u sheegtaad ku tidhaahdaa addoommahaygii naftooda ku xadgudbayow. kuwii naftooda ku xadgudbay buu ilaahay leeyahy addoommahaygiiow, oo haddana u yeedhaya. laa taqnaduu min raxmat illaah, ilaahay naxariistiisa ha ka quusanina. ilaahay dembigoo dhan wuu dhaafaa. marka taasina waa midh aad u muhiimoo qofka mu'minka ahi isdhigan maayo ee camalka uu samaynaya, laakiin rajo ku nool weeye. arrinta saddexaad waxa weeye adqin camalak tuxaqiqi najaax. camalkaaga waa inaad hagaajisaa oo aad ku xaragootaa oo camalkaagu mid diineed iyo mid duunyaba wax sugan waa inuu yahay. oo shaqo fiicanaad qabataa oona naftaada caamaynin, ummaddana aanad caamaynin, ciddaad u shaqaynaysa caamaynin. haddaad camal cibaadoo diiniya qabanaysana ku xaragood. nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku yihi xadiid saxiixoo dabaraani warinayo ina allaha yuxibu axadakum idaa camila camalan an yutqinahu. ilaahay midkiin wuu jeclaadaa markuu shaqo qabto oo shaqadaa uu wanaajiyo. qofka mu'minka ahi hagrasho ma leh, qawda maqashiina ma leh, laakiin waa qof xaslasho badan oo xigmad ku soconaya oo wuxuu qabanaya ku xaragoonaya. marka arrintaasina waxyaabaha farxadda keentay ka mid iyo guusha. arrinka afraad waxa weeye akthir tafaa'ul, inaynu tafaa'ulka badinno. tafaa'ulku waxa weeyaan aanad noqonin qof baasaysi badan oo sharaysanaya wax oo cidhiidhi ku sugan oo shakisan, laakiin adigoo kolleyba sababaha qaadanaya oo dadaalaya, haddana waa in tafaa'ulka wanaagsan aad ogaata. nebigu waxa uhi yucjibuni alfa'lu alxasr. aniga tafaa'ulka wanaagsan baa iga farxiya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. nin baa nebiga tadayur ku weydiiyey oo wuxuu yidhi mararka qaarkood waxa dhacdo wax laabtayada soo wareega oo macnaha ku meera oo aanu shaki nagu abuura. markaa nebigu waxau uhi calayhi salaatu wasalaam falaa yasudannakum. shakiga noocaas iyo baasaysigaasi waxaad doonaysa iyuu idinka hor joogsanin. idan markaa qofka muuminka ahi tafaa'ul ku wanaajinaya. saadaasha waxaanaynu nidhaahno saadaal wanaagsan iyo tafaa'ul wanaagsan maaha qof wax walba ka dayriya ee wax walba waxa wanaagsan buu tafaa'ulaya.
si aad najaax u gaadho adduun iyo aakhiraba iyaaka wa dulm waxaynu iska ilaalinaynaa shayga loo yaqaano gardarrada inaad naftaada ku gardarooto ama ehelkaaga ama ummaddaada taana waad iska ilaalinaysa moxamed ibnu siriin taabiciga la odhan jiray oo imaam xigmad badan ahaa ayaa qofka isagoo arrintan kala talinaya ayaa waxa uu ihi dulmuka liakhiika an tadkura minhu aswa'a maa ra'ayta wa taktuma khayrah walaalkaa waa dulmiday haddii wixii aad ku aragtay gafa wax ka weyn aad ku sheegto maalan gaf baad ku aragtay weynaysaad u saartay oo waad u buunbuunisay waad dulmiday buu leeyahy wixii khayr ahaayee aad ku aragtayna waad qarisay ile ilaahay baa wuxuu tilmaamay subxaana aakhiro markuu camallada addoommaha u miisaamayo sharki iyo khayrka labadaba in la miisaamayo faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala daratin sharan yara qofku hadduu khayr sameeyeyna wuu arkay hadduu shar sameeyeyna wuu arkay marka adigii inaad khayrkii qariso oo aad sharkii sheegto keliya ama sharka aad u buunbuunisay iyo gafku ku dhacay iyada laftigeedaa dulmiya marka waxyaabaha qofka farxadda iyo sacaadada iyo nasashada iyo guusha u sababa waxaa ka mid ah an yabtacida can idulm gardarrada dadka inuu iska daayo dhinac kastay tahayba naftooda maalkooda sharaftooda qofku raaxu ku noolaanaya iyo sacaada waxaa ka mid a dardaaranada ah idaa najaxta fii amrin fa iyaaka waalguruur marka had iyo jeer arrin aad ku guulaysato waxaad iska ilaalisaa inaad isla fagadh tidhaahdo ama aad isqaadqaaddo ama aad isfaaniso nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam markuu arkay waxaa ka amar qaadanaya collaala ciidamada jin iyo insi iyo xayawaan iyo shimbiraba leh ayaa wuxuu uhi haadaa min fadli rabbi liyabluwanii a ashkuru am akfur wax alla waxaasoo dhan waa ilaahay fadligiisa waxaanuu i eegayaa inaan u mahadnaqa iyo inaan ka gaaloobo marka wixii ilaahay uu ku hirgeliyaba sidaa nebi sulaymaan waa inaad tidhaahdaa haadaa min fadli rabbi nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy ina allaha awxaa ilay an tawaadacuu walaa taftakhiruu aw an tawaadacuu xataa laa yaftakhira axadu calaa axad aw xataa laa yafkhara axad calaa axad ilaahay baa wuxuu ii waaxiday tawaaduca ogaada tawaaducu waa isgaabinta iyo isyaraynta iyo inaad isdhul dhigto oo qofna qof kale markaa aanu u faanin markaa shayga la yidhaahdo wixii kuu soo kordheed ku guulaysataa waa fadli ilaahaye waxba ha ku faanin waxyaabaha qofka guusha u sababay arrintaasina ka mid tahay idan arrinkaa kalaynu xusi lahayn waxa weeye ee toddobaad ida stansart aw ida intasarta cala alkhusuum falaa tushmit marka dad ay ishayseen aad ka guulaysato ama aad ka gacan sarrayso oo muslimiinta ka mid ah dee waad doodayseen maalan waxbaa isku hayseen wixii waad ku guulaysatay sidaadii bay noqotay markay arrintu noocaa u dhacdana ha ku wiirsanin oo kuwiirsigu ma wanaagsanaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskhar qowmu min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum walaa nisaaءu min nisaa'in casaa an yakuna khayra minhun sukhriyada waxaa la yidhaahdaa iyo isxaqiraadda ayaa ilaahay qur'aanka uu ku diiday subxaanahu wa tacaala ahar baa isaguna waxau ahaa laa tudhir ishamaatata liakhiik ha u muujisanin walaalkaa inaad ku faraxsan tahay dhibkiisa waxaa dhici karta inuu ilaahay isaga ka qaado adigana ku ibtilaayo xadiidka culimmadu daciif bay ku tilmaameen laakiin macnaha uu sheegayaabaa saxa marka kuwiirsiga waxaa le cid kastoo dhib ku dhacay ama kayshayseen ha ahaado ama mid kale ha ahaado muslimiinta ka mid ah ha ku wiirsanina taana inaad iska ilaaliso aad iyo aad bay muhiim u tahay qodobka kalaynu xusi lahayn waxa weeye ikhtar sadiiqa saalixan saaxiib wanaagsan dooro sacaadada farxadda nolosha waxa ka qayba iyo guusheeda iyo horumarkeeda inaanu kaa xumaanin rakaabku
يعد الله صاحبيس أما الله صعته نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ثاوي نقل دردارمو وحولها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وارتضي وقفك وحو هايستا دين تساحيب كيس هكفير صدو عدة ولا صاحبه وهذا عرورته دوبركا رقا مدحدا الصاحب صاحب بيد هذا عربت صاحب كو جيدايا سي aanad ogeyn buu ku jiidaya dhaqankiisa dhibco kugu dhibcinaya maalin walba in yaro dhibca ayaad qaadanaysaa dhaqankiisa waxay carabtu yiraahdaan la tasal 'ala al-mar'i wa sal 'an qarinihi fa inna al-qarina bil-qarin yaqtadi waxba qofka ha waraysaninka uu yahay saaxiibadiisa uun eeg saaxiibku ku dayda marka mushkilad badan saaxiibka keena hadduu saaxiibkaagu wanaagsan yahayna khayrkaad higsanaysaa marka intaasay noogu joogi doonaa casharkan imika isagoo kooban ilaahayna waxaan ka baryayaa dardaaranada 8 aynu qaadanay inuu inagu anfaco aad waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh